بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، انت اسكدب ولاليال رمضان مبارك بشي بركة سند فضلك بدنيد يا إنو دلتي إلهي فضلك سي مهديس إلهنا كما هاتسان أو فضلك نجارسيي أنا أودين يتاكتنا من ما هين كم إمسان نوليد سندي هوري أو كتل قليسي سند كان يسوق جارت هذنا ينسوق جارين إلهي مهديسي واي وإلهي نسوق جارسيي وإلهنا كما هاتسان أودين عن أولهين ما انت كدب إن شاء الله تعالى وحان بالله بدونا برنامج أنا قلت لك قلني بش بركيسا فضائش هذه iyo أحكامتهذه iyo wixii soo raacay insha Allah ta'ala ilaa iyo dhowr xalaqo tanna insha Allah ta'ala waa xalaqadeeni koowaad oo aan kaga hadli doono biidnillaahi alkariim fadliga bisha Ramadaan ay leedahay inagoo dhowr qodob ka eegi doona waxaan ka hadli doonaa biidnillaahi alkariim fadaaisha ama fadliga bisha barakaysan ee Ramadaanka ay leedahay. bishan fadaaisheedii wax la soo koobi karay ma aha oo waa shahrul qur'aan oo bishi ilaahay uu soo dejiyay weeyaan. ilaahina subhanahu wa ta'ala wuxuu kala fadilay insaanka qaarkii uu kala fadilay tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. ilaahay wuxuu kala fadilay amaakintu kala fadilay oo hadda la mid ma aha dhulalka isku mid ma aha Makka iyo meelo kale isku mid ma noqonayaan, Madiina iyo meelo kale isku mid ma noqonayaan. sidaas oo kale ilaahay wuxuu kala fadilay bilihi ayuu kala fadilay minha arba'atun hurum wa tu ilaahi subhanahu wa ta'ala uu quraankiisa uu ku leeyahay waxa kamida bilaha la fadilay bisha Ramadaana kamida oo ilaahay fadli gooniya uu siiyay iyo miisa gooni ilaahay uu siiyay. miisooyinkaas ama fadaaishaas iyo khasaa'ista iyada lagu fadilay dhowrkii ilaahay uu inaga karsiyo yaan ka sheegi doonaa. waxa kamida awalan ilaahay subhanahu wa ta'ala waa bishii quraanka uu soo dejiyay. bisha Ramadaan waa bishii ilaahay uu quraanka uu soo dejiyay oo ka hadlaysa quraankii oo ka hadlaya waxyaabihii hore waxyaabihii dambe waxa aan hadda taaganahay ummadihii naga horeeyay dhammaan dastuurul umma isagoo ah. bisha Ramadaan quraanka la soo dejiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala aayado fara badan iyo nagula khidaabay oo ay kamid tahay shahru ramadaan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. bisha Ramadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay quraankaas oo ah hudan linnaas oo dadka hanuun u yahay iyo cadaymo. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu amray isla aayada qofkii bisha gaaro inuu soomo oo hadduu caafimaad qabo una safar iyo waxba una ku jirin inuu soomo. haddii laakiin uu xanuunsan yahay ama safar uu ku jiro waxa uu banaan fa'iddatu min ayaamin ukhar maalmo kale markuu caafimaado ama safarka uu dhamaado kale inuu soomo. fadaaisha bisha barakaysan ay kamid tahay. aayad kale ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku leeyahay inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay quraankan soo dejinay waxaan soo dejinay laylatul qadri ayaan soo dejinay. laylatul qadrigana bishan ay kamid tahay sidoo nabiga noo cadeeyay alayhi salatu wassalaam إن هذا الشهر حديث أنس بن مالك إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر. بشان تنا وبش رمضان يا إذين سو قال يدين سو حاضري وفيه وحانا كمدا ليلة هبين أو خير كخير بدن من 1000 شهر
kun bilood ka khayr badan waa 83 sano iyo bilooyin ka khayr badan man xurimaha faqad xurima alkhayra kullah qofkii laga xarimo beenka ilaahay inuu adeeco ilaahay uu soo laabto ilaahay uu ku xirnaado qofkii laga xarimay waxa laga xarimay khayr oo idil إلى سبحانه وتعالى مرك إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر يا سود الجني نبينا عليه الصلاة والسلام سيدنا الله سبحانه بشهر رمضان كلي قرآن كمان سود دجينة سيد حيلواتن سنة إلا النبي نبي وهاي وإذل مربى قيبة سود دجي سي أما أيضا ما سورة سود دجاي سيد الله يسقوا فجنا يا ليلة القدر يا سود الجني iyo nabiga 23 sano quraanka ku soo degay waxa la isku waafajinayaa sida bacd ulama ay marayaan in laga soo dejiyay samaa sabi'a oo loo soo lawhul mahfuudki laga soo dejiyay oo la keenay samaa dunya ama la keenay samaa dunya baytul ma'mur ki la keenay yani isku waafajinayna bacd ulama siday marayaan فضل قلبات أو بشر بركة سنة رمضان أي لا ذهي وحكمدا وبال لفرو الباب ذا الجنة سنبي قنوة الإمام عليه الصلاة والسلام في مسند إمام أحمد عند النسائي سنن كيسا عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين أنس بن مالك نبي كورني عليه الصلاة والسلام إنه نبي غيره هذا كان رمضان ورمضان قد جاء وايم تفتح على فر فيه دحديثة أبواب الجنة الباب ذا جنة على فريا وتغلق فيه أبواب النار الباب ذا نار تنوال حريا وتسلسل فيه الشياطين وحالكتين دينا يا شياطينتي فضائشة وحاكمة سيدان هذا بكوسة المامني ليلة القدر يا كمدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ليلة القدر بشهر رمضان كسو أروري كذب النبي عليه الصلاة والسلام وحكوت الماما يا بشهر بركيسان habeenkeedii ugu horeeya in la furi doono in la xiri doono shayaadiintii oo jinkii kuwii madaxa adkaa la xiri doono albaabada jannada la xiri albaabada naarta la xiri doono aan midba la furi doonin ilaa bisha barakaysan lagu guda jiro oo la furi doono albaabadii jannada oo midna aan laga xiri doonin inta bisha lagu guda jiro waxa dhawaaqi doona mid dhawaaqayo leh kii khayrka doonayo soo qaabil oo kii khayrka sharka doonayo adna kii sharta doonayo adna iska gaabso iska meesha iska gaabso ilaahna subhanahu wa ta'ala waxa u sugan kuwa laga xureynayo naarta arinkan oo xureyntaana wuxuu jiri doonaa habeen walbo bisha barakaysan kamida ilaahay ha inagu daro inaga iyo waalidiinteeniba kuwa bisha barakaysan naarta laga xureeyay fadaa'isha bisha barakaysan waxa kamida in dhunubaha lagu dhaafi doono dhunuubta lagu dhaafi doono qofka bani aadamka muuminka nabiga عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة وكورنا وحكول يهي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر حديث مسلم ورنا هدي بشا الصلاة والباي وصلاة هشان تكمده الصلوات الخمس
oo micnaheedu ay tahay salaad walba iyo salaada kale inta ka dhaxaysa. waljumucatu ila aljumuca, jimcaha ilaa iyo jimcaha kale inta u dhaxaysa. wa ramadaanu ilaa ramadaan, ramadaan ilaa iyo ramadaanka kale inta u dhaxaysa. dhammaan mukafiraatun lima baynahunna, waa kuwa oo dunuubihii lagu dhaafo inta u dhaxaysa. salaad walba ilaa iyo salaada kale laga gaaro dunuubihii la galay oo yaryaraa waxaa lagu dhaafi doonaa salaada kale ka dambaysa. ramadaan walba ilaa ramadaanka kale dunuubihii yaryaraa la galay waxaa lagu dhaafi doonaa ramadaanka markaa la joogo. waa goorme ida jtunibat ilkabaa'ir, haddii dunuubaha waaweyn laga fogaado. kuwa yaryaraa ayada waxaa dhaqi doono salaadaha waajibaadka la gudanayo, jimcooyinka iyo ramadaanka la gudanayo yaa ilaahay uu ku dhaafi doonaa. abi hurayra xadiid kale uu ka warinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam, raqa almimbara faqaala aamiin aamiin aamiin. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa fuulay mimbarkii wuxuuna yidhi aamiin aamiin aamiin. markaasay saxaabadii ay ku dhaheen rasuulka allow maxaad ula jeeday aamiin aamiinta aamiin maxaad ula jeeday? markaasuu yidhi waxaa ii yimid jibriil calayhi salaam yaa ii imaaday, malaku jibriil aa ii imaaday oo leh raqima anfu cabdin dakhala calayhi ramadaanu falam yukfar lah. mid oo bimacnaa habaar ama halqabsi ah, qof sankii ha booroobo oo bisha ramadaan ay u soo gashay oo haddana aana loo dembi dhaafin. bisha ramadaana u soo gashay muuna ka faa'iidaysanin khayraadkeedii iyo nicmadeedii iyo barwaaqadeedii, wanaagii iyo cibaadaadkii dhammaan muuna kaga faa'iidaysanin, oo sidaas ayuu dembi dhaaf uu ku heli waayey. qofka nooca ah walba sidaa ha noqdo. nabigana calayhi salaatu wasalaam uu dhahay aamiin uu dhahay. labada kalena waxay ahaayeen mid agtaada lagu xusay aan kugu sallin, iyo mid labadiisii waalid ama waalidkii mid ka mid intuu soo gaaray sababtoodii aan jannada ku galin. waxaa warinaya bayhaqi iyo ibnu xibbaan, waana xadiis xasana bal saxiixa. fadaaisha bisha barakaysan ma aha mid hal xalaqo iyo laba xalaqay lagu soo koobi karo. insha allahu tacaala waxaan isu dardaarmaynaa, anoo nafteyda ka bilaabaya, waxaan isu dardaarmaynaa inaan bishan aan ka faa'iidaysano. ma ogin inaan gaari doono ramadaanka kale, bal ma ogin inaan gaari doono bishan gabagabadeeda inaan gaari doono ma ogin. sidaa awgeed maalinka iyo labada maalin aan haysano ama maalmaha aan haysano oo ilaahayba uu ku tilmaamay ayaami macduudaat, dhowr maalmood oo tirsamayo fara ku tirisa oo ilaahay uu ku tilmaamay, aan kaga faa'iidaysano insha allahu tacaala khayrka iyo wanaagga uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inoo jideeyey, oo ay ka mid tahay salaada oo la badiyo, nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu saliyo, qur-aan akhriskii oo la badiyo, dadkii muslimiinta ahaa ee dhibaataysnaa oo wixii la gaarsiin karo khayraad ah la gaarsiiyo. insha allahu tacaala aan kaga faa'iidaysano wax walba, anwaac walba khayrka, qur-aanka akhriskiisana aan badino. hada wabillahi towfiiq, wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin.